waxaad u garanaysaan caasi balse dunida carabta waxaa looga yaqaanaa lamiis magaceeda saxda ah waa Tuba Büyüküstün waxa ay ku dhalatay Istanbul July 5, 1982 waxa ay ka baxday jaamacadda Mimar Sinan University ee ku taala Turkiga waxa ay baratay naqshadaynta dharka iyo diyaarinta masraxyada filimkeedii ugu horeeyay waxa la daawaday sanadkii 2003 waxa lagu magacaabi jiray Sultan Bobias filimkii ku xigay waxa uu soo baxay sanadkii 2004 waxaana la oran jiray Rose Bartender filimkii kale ee ku xigay waxa ay soo saartay sanadkii 2005 filimkaasi oo lagu magacaabi jiray Under the Canopy isla 2005 waxa ay soo saartay filim kale oo lagu magacaabi jiray My Father and My Son 2006 waxa ku xigay filimkeedii sida weyn loo daawaday ee The Way of Love 2007 ilaa 2009 waxa ay soo saartay taxanihii sida weyn caanka u noqday ee la oran jiray Caasi kaasi oo si weyn looga dheehday gudaha Soomaaliya xilligaasi oo ay si weyn uga soo shaac baxday geeyga Soomaalida qasooyinka ku hagoogan filimka Caasi waxa kamid ah in haween badan iyo rag Soomaaliyeed ay ku kala tageen sababo la xiriira dumarka Soomaalida oo aad u jeclaa musalsalka Caasi wararka kale ee filimkaasi dul hoganaya waxa kamid ah in haweenkii xilligaasi wiilasha dhalay qaarkood ay u bixiyeen Amir kaasi oo ahaa atooraha filimka sanadkii 2010 Caasi ama Tuba Büyüküstün waxa ay soo saartay ilaa lagu magacaabi jiray Broken Heart isla 2010 waxa ay ku celisay filim kale oo la yiraahdo Ask Your Heart ama Weydii Qalbigaaga 2014 ilaa 2015 waxa ay jiray filim si weyn loo daawaday kaasi oo magaciisu uu ahaa Dirty Money False Love Caasi asalkeedu waa Turki dhinaca hooyadeeda waxa ay ka soo jeedaa qoys soo galooti ah kaasi oo Turkiga ka soo galay dhinaca gobolka Crimea dhinaca aabaha hooyadana sidoo kale waa soo galooti Turki ah waxa ay ka soo gashay dhinaca Greega intii ay ku guda jirtay jilada taxaniga caanka ahaa ee Caasi waxa ay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ku guursatay jilaaga reer Turki ee lagu magacaabo Anur Saylik kaasi oo is guursadeen sanadkii 2012 waxa ay u dhashay laba gabdhood oo mataana ah oo la kala yiraahdo Maya iyo Tubrak balse nasiib darro lamaanahan waa ay kala tageen 5 bishii June 2017 Caasi oo ah atirisha si weyn looga jecel yahay dunida Carabta iyo guud ahaan Turkiga wixii intaasi ka dambeeyay waxa ay jecel wada jilayeen ninka lagu magacaabo Umud Efirjin kaasi oo ahaa maariyaheedii waxaan la sheegay in xiriirkaasi 3 sano kadib uu burburay sida ay qortay warbaahinta Turkiga ee ka faaloota arrimaha xiriirada markii uu Turkiga ku dhiftay cudurka COVID-19 ayaa warbaahintu waxa ay soo warisay in Caasi uu xiriirkeedii burburay isla markaana ay joojisay gurigii ay wada deganaayeen iyada iyo jaceylkeedii isla markaana ahaa maariyaheedii Caasi ayaa la arkayay iyadoo albaabada iskugu dhifatay gurigii ay deganaayeen iyada iyo labadeeda gabdhood halkaasi iskaga guurtay Onur Saylik oo ah jaceylkeeda hore isla markaana ay u dhashay labada gabdhood ee mataanaha ah waxa la sheegay isaguna muddo kadib in uu guursaday Goste Yilmaz oo ah ciyaaryahan waxa ayna u dhashay wiil kaasi oo ay u bixiyeen Danis Ali baga uu ku leeyahay Instagram-ka waxa uu ku daabacay in uu aad ugu faraxsan yahay dhalashada wiilkiisa kaasi oo ku dhashay isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala galbeedka Turkiga sida isaguba uu sheegay Caasi hadda waxa ay ka tirsan tahay hay'adda UNICEF ayaa waxa ay u aqoonsatay safiirka Turkiga ee hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha carruurta kadib markii ay qiimeyn ku samaysay dadka caanka ah ee ku nool Turkiga kuwaasi oo dadkoodu ay xushmad u hayaan Tuba Büyüküstün ama Caasi waxay hadda noqotay safiir sharafeedka hay'adda UNICEF ayaa waayay dambe waxa ay waday dadaalo ay xiriir kula sameynayso shakhsiyaadka caanka ah ee dadkoodu ay xushmad u hayaan kuwaasi oo ku nool adduunka daafihiisa waxaana waayay dambe ka soo dhex muuqanayay shakhsiyaad caan ah waxaana laga xusi karaa Priyanka Chopra Caasi Xaliimo Aadan iyo gabdho kale oo aad u badan taasi oo UNICEF ay u aqoonsatay wakiilka wadamada ay joogaan